Hello, this is Rukia Abdi and reminding you again about the stay at home extension that our governor Tim Walz announced it yesterday, and this will be in Somali language. Um, Assalamu alaikum and wa Ruqiyo walaashin Ruqiya Abdi and oo mar labaad rabto inay ma aragta idiin xusuusiso amarka ahaa in la joogo guriga oo shalay oo ahayd taariikhda abril sideedeeda gobolka Minnesota gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz uu ku dhawaaqay marka horeba way jirtay laakiin waxay expire noqonaysay jimcada oo Brit ah maantana waa abril sagaalkeeda bisha abril waa sagaal sanadka 2020 so waxaan rabaa inaan stay at home ka idin sheego waa la extend gareeyay wacnihii waa la badiyey goorta la yiri guriga hala joogo waxaa laga dhigay ilaa iyo May afarteeda bisha May afarteeda aad guriga la joogayo sababta aan rabo inaan idin xasuusiyo kolay waad maqlaysaan akhbaarta ama news media ama baraha bulshada in la soo dhigayo laakiin qaas ahaan waxaan ugu talagalay dadkeena Soomaalida xoogaa u baahan little more in loo sharxo waxaan rabaa inaan xooga saaro waxa la dhaho flatten the curve sawirkan aad u jeedaan oo guduudka iyo buluugaas isdhex dhaafay inaan xoogaa yar sharxo iyo muhiimadda ay leedahay in aan arkin oo guriga joogno waxaa kaloo xusid mudan in distance learning-ka asagana insha Allah aan asagana waan ka hadli doonaa laakiin hadda asagana xusuusin ilaa May afarteeda ayaa isagana laga dhigay waad ogtihiin taas ma rabo inaan taas aad u sii galo laakiin waxaan rabaa inaan xoogaa ogaataan connecting the dots ahaan May 4 ayuu ku egyahay guriga la joogayo iyo waxbarashada dad badan ayaa isweydiinaya hadda May 4 marka la gaaro June maxaaba ka dhimanba hal bil unbaa ka dhiman marka taas ma rabo inaan ka hadlo sababtoo ah waa go'aan uu governorka ama gudoomiyaha gobolka uu dadka u sheegi doono sida laakiin guud caqli galka ah ee hadda muuqato waxa waaye in sanad dugsiyeedka laga yaabo oo dhan in guriga ay la sii joogo marka walaalayaal waxaa jirto in sababta keentay inaan idin sheego maxaa loo dheereeyay waxaa loo dheereeyay waxaa la guriga hala joogo social distancing hala sameeyo taasna waan si fiican u sharxi doonaa insha Allah tacaala dad badan ayaa waxay dhaheen de anaga waa exercise garanayna banaankan aadayna waalidiin badan ayaa ayagana dadkii ciyaalkii kurayda ahaa kari waaye oo dibadda lagu wada arkay dad qaarkood waa la report gareeyay laakiin hadda hal is report gareeyay ujeedada ma ahan uu yiri gobolka gudoomiyaha gobolka waxaa muhiimadda waxay tahay in aan dadkaan wax barno education inaan ku sameeyno educate in lagu sameeyo la dhaho waxaan it's good for you muxuu ahaa ha sameynina marka waxaa la arkay dadkii playground iska aaday oo yaa maxaad meesha u taagantihiin soo guriga joog malin dhinaay waxa igama gal aniga ma jirinayo camal something like that inay ku hadleen iyo dad adiga waaweyn xataa lagu arkay wabiyada dhinacoonta dhahan waan soconaynaa ayagoo hoos isaga jiro la arkay intaas markii laga soo tago walaalayaal indhaha inaan furno ayaa fiican adduunka ka soo tag gobolkeena Minnesota maanta yani wadankii xataa Soomaaliya xataa way gaartay sheekada adduun weynaha dhan ay gacdo waxaana waa wax weyn marka waxa loo baahan yahay in arintan taxadir weyn laga qaato qofkii Ilaahay u qadaro uu dhimanayaa sax lama diidin laakiin inaan dadaalno ayaa nala faray iyo inaan dhageysano dadka cilmiga u leh waxaan dhacayo oo diinteena islaamka ah way nagu baraarujisay inaan dhageysano dadka cilmiga u leh waxa hadaanan aqoonin fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ayu ilaahi subhanahu wa ta'ala quraanku yiri aayadaas hadda meesha aad ugu jeedaan waxaan ugu talagalay waxaa jirto markii laga hadlay waxyaabaha infectionka ah iyo cudurrada iyo sida uu faafaan iyo sida lagu joojinayo
waxaa jira wax la dhaho behavior change in loo baahan yahay in la sameeyo dabeecadaha dadka iyo waxa ay samaynayaan ayaa isbeddel lagu samaynayaa markaas kadib ayaa waxaa la helayaa natiijadii la rabay arrintaasna waxa waaye waa hab oo nidaam ijtimaaci ah oo diinta islaamka ay qabto ilaahay subxana watacaala qur-aanka wuxuu ku yiri إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إلهي ما بدلوا قومك قوم ما بدلوا إلا أي ما أركنوا كبدل الحالة أي كسجنيهين مركا أرنتاس مركا connection كده هذا محويها flatten the curve اللي شيء مركا فيرينو graph كاس ماشي كجرو دينا عبلوجة كر واحد وجد أنا كقولنتها health care system capacity waxaan waa la sharxaa mar walba laakiin xoogaa dadka little bit confused ku noqonayaan inta qof ee hadda maanta uu cudurkan ku dhici karo waxaa la leeyahay way badanaysaa dhimashada waa iska badanaysaa laakiin waxaa la yidhi haddii dadkii ay hal mar isbitaalka wada tagaan hadda ka horna waan sheegay waxaa dhacayo healthcare system capacity waxaa laga wadaa awood uma laha nidaamka caafimaad oo hadda aan haysano in uu qaabilo 200 qof oo xanuunka ku soo dhacay in ay meesha geeyaan ama uma hayaan bahlada ku caawina inay neefsadaan oo ventilators la dhaho lama hayo laakiin haddii ay waxaan aan soo jeedinay oo protective measures ay qaataan waxaa la leeyahay dadka isbitaalada imanaya way yaraanayaan sababtoo ah laskuma dardaaranayo oo dadkii way kala joogaan marka waxaa la rabaa marka in aan dabeecadeeni iyo sidii aan ku dhaqmi jirnay aan bedelo see u bedelayna waxaana la yidhi guriga jooga waa change of behavior waaye ya in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiru maa bianfusihim waan bedelnay anaga waan bedelayna marka ilaahayna wuuna amray dadkii oo cilmiga lahayna way noo sheegeen run ahaantii haddaan ku noqdo xataa maraykanka runtii calolxumaa ku qabanaysa haddaad aragto dad badan oo muslimiin ah meedadkooda lasdul saarayaa awood way u heli laayihiin sheekadii farahooda way ka baxday micnihii guduudkaas hadda garaafka u jeedaan without protective measures maysan qaadanin hadda haddaan ku eedayno iyo haddii kaleba ma dhicin sababta aysan u dhicin dadkia laga yaabaa inay wacyigelin badan aysan helin walaalayaal waxaan insha allahu tacaala aan serious u qaadano hadda dadkeena waddanka norway dad badan ayaa ku dhintay ingiriiska aad ayaa loogu dhimanaya ilaahay subxaana watacaala jannada ha geeyo inta noolna ilaahay subxana watacaala ha ka badbaadiyo dadaal iyo duco in laisku daraa la rabaa dadaalna waxaa la rabaa in aan aqrino annaga badanaa waxaan dhegaysanaa cilmi dhagood ayaan leenahay dadkaan dhegaysanaa inaan aqrino waxyaabaha dadka cilmiga leh ay leeyihiin inaan marka ka aqrino source wanaagsan waxaa la dhahaa primary source iyo waxaa kala jiro secondary source haddoo kale covid-19 kan secondary source ma u baahnidin dadka cilmiga leh waxay taxliilinayaan sax dhegayso laakiin waxa waaye maxaa run ah waa inaan dhegaysanaa norway hadda maxaa la yiri norway waxaa la yiri waxa ku nool waa hadda 2017kii tiro koob la sameeyey waxaa ku nool qiyaas ah 29,000 oo qof oo Soomaali ah hadda maxaa la yiri shalay article laga soo qoray waxaa la yiri boqolkii qof oo Soomaali ah ba hal qof ayaa cudurku ku dhacay waxaan u malaynaysaa marka dadkii marka isku tagaan oo niraahno waxaan anaga dadii waa salaamayna waa isla soconaynaa sheekada ma soconayso stay at home ka hadda ilaa May 4 ayaa laga dhigay how can we flatten the curve marka sidee aan flats uga dhignaa muxuu ahay anagoo fiirina graafkaas curvegaas qaloocaas sideen flat uga dhignaa waxaan ugu dhigi karnaa inaan آيات الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن راعنا وان بدلني سالو راعي جورج جوجا نلجري وان جوجينا جورج نفتر كيس هدي الجوجا رنتا إدين شيء يا هذا جورج جوجا هدي آذن تحضر لهين عذرك ولي وكود عيا لأنه قف بلغيا بأنه جورج كميديا بناك هذا أذيك ساقبته مرك جورج أوي ماذا وحال ربع إنه تحضره بركيس كبيه سقفك كباه هذا وحاول يسدح معلومات qofka banaanka markuu ku imaado 3 maalmood oo virusku ku noolaan kara kabaha kabii markaad meesha dhigto qofkii guriga joogay u maleynaa inuu waxaan nabad ka haysto wixii ku istaago uu ku dhacaya micnihii banaankaad ugu keentay dhalinyarada banaankaas inay is ilaaliso dadka wax soo gadaya inay is ilaaliyaan marka waxaan rabaa 3
hab ayaa jiro la yiri oo ma arkino waxaan flatten the curve-gan kugu caawinayso inaad samaysid shakhsi ahaan sanitationka inaad ku dadaashid nadaafadda inaad meel walbo aad nadiifisid gacmahaada aad dhaqdid gacmaha dhowr qofoodaa sheegay hala dhaqo dadka marka hadda waxay leeyihiin gacnihii waa dhaqan laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego why wash your hands why waxaa loo samaynayaa leen sabab baa ka dambaysa waxaan sababta gacnaha loo dhaqayo waxay tahay dhakhtar ayaa hadda ayaan dhaweyd muxuu ahay training samaynaya wuxuu yiri oo New York ka shaqeeya weliba isbitaalada hadda wuxuu dhahay 95% cudurkani dadka wuxuu ka galaa indhaha sanka ama afka sababtoo ah way taabteen ma fahanta hadda gacantaadii markaad wax ku soo taabatid oo aad wejigii aad sanki ku cuncuno ishii aad ku xoqdo meeshuu viruska kaa gelaya waa 95% wuxuu dhahay meesha cudurrada ka galaan marka kaliya wash your hands ma aha don't touch your face ku xigto waxa waaye ha taabanin wejigaada waxaa kaloo jirta wax kaloo la dhaho cross contamination waxaa la dhahaa gacantii aan glove gashanay wejigii waa iska ilaalinay suuqa adeeg ka soo qabanay rootiaan soo qabanay caanaan soo qabanay glovekii noogu jiro meel waxaan taabanay oo viruski u haysta matalan yaalo markaan taabanay waxaan u malaynaa gloveki inuu caawinayo moogtahay caqli micnihii yani psychology ahaan waxaan taabanaynaa caanihii rootigii wixii oo dhan telefoonka hadduu soo dhaco waan qabanaynaa telefoonkii uu sii gaaraya hadhowtii gloveka la iska bixinaya waxaa loo malaynayaa in aan safe nahay xataa waxyaabaha lasoo gado waa lasii nadiifiyaa waana qofka markuu soo adeegayo inuu iska ilaaliyo يعني sanitationkaas waa nadiifin meel kasta in la tirtiro community level waa bulshada levelkooda see maxaa samaynaysaa social distancing lagu social distancing ka fogow dadka lix waxaa la yiri feed waa inaad talaabo waa inuu ku jira qofka micnihi ma qofka inaad necab tahay hadda dad badan oo halkan ama Minnesota waliba magaalada aan ku nool Minneapolis dukaamada markaa gashid aad xogaa saas ugu jiro runtii wayba ku xumaynayaan waxay ku leeyihiin ma ana cudurku qaba camal xogaa wax baa naga dhaadhacsan walaalayaalow waa naf badbaadin حتى قفك وحال هذا السجن قنفعين وحلا جاي بعذرك إنه قبا social distance هالود دالو بوقشة بدن هالسك دايو لما إنه ما أها إنا حريرك جوزيد تلفون قفك ودير كرتا مركز لحد ليسيدنا وإنا كديراتا إن هذا كلا ماسك هلا جشتالين ماسك راتا هلا سميستو مريا كسميسن كرتا إن شاء الله تعالى فيديو وصار جدونا السجن أو متسيمبل أصل الله سميناي وحالي وحكا علينا يا السجن إن ما أركنه عذرك أتهشيد and avoid touching services meelaha environment ahaan bii'ada markaad banaanka aadid kale dad baa soo soconaya ama markaad adeega soo qabanaysid gaariga markaa furaysid gaaska markaa gaari ku shubanaysid alaabta markaa soo qaadaysid meelaha hata taaban elevatorka hadda runtii saraha dhaadheerka hadda oo magaalooyinka mataanaha aan ku noolnahay hal sar ayaa laba qofood laga helaa liiri Soomaalida markay waxa leeyahay qatar ayay ku jirtaa waxa lagu matalay markabkii weynaayo ma arkino oo kow ku dhacay laga ogaaday inuu dadkii dhan ma arkino saameeyay oo la yiri waa inay karantiin is wada galiyaan markabkaas ayaa lagu qiyaas yani lagu matalay Soomaalida saraha ay ku nool yihiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala haduusan badbaadinin waa lagu wada daadanayaa walaalayaal aan ducadana badino aan dadaalno waxaan waa qatar waan isla wada noolnahay laakiin dadaalka markaan sameeyno markaas kadib Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan tala saarano and go'aankeena waxa waay iyo dardaarankeena insha Allah ta'ala inaan isku duceyno ramadaanna uu soo socdaa walaalayaal aan dadaalno dadka waayeelka ahna aan ogaano dariska aan ogaano insha Allah ta'ala aan isku naxariisano assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh